jacaylada nin sheegay dhageysta qisa cajiiba nin waxa la oran jiray magaciisa Qays naag buu aad u jeclaa Layla la oran jiray Layla gabadha laakiin boqor baa dhalay isagu laakiin waa miskiin boqorkii baa inantiisii ku yidhi aabbo waad qaan gaadhay haddee toole soo kuma dhiso markaa bay tiri aabbo ninkaan ii dhisaysid anaa kuu sheegay markaas waa ninkee Qays baan jecelahay tiri Qayskee askartii ciidankii Qays ma taqaan markaa mid miskiin oo magaalada dawarsada أبا ما أبو ينبو قرا قيس جعلان بكويل ما قاعد بيسد وعاتري نينكا لنا نهينا نقول قول كيسا ومفرديا نينكا مو يعني محبضة بين بنتا هي محبضة الرنتا القصد أوسوقاتين لقيستا وقصة معقولة أنا مركا لا يقرنتي وعقل قلع waxa lagu nagu fahamsiinay inaka gabadhii way weynaatay ninkiina uu iska waashay gabadhii waa loo diiday moogtahay xayraan buu noqday isagoo timar uu la baxayo qasriga boqorku ku wareega isagoo markaa magaciisa ku celcelinaya hatta maalin baa la arkay isagoo gidaarkii dhunkanaya darbigii kaasa dadkii ku yiraahdo warqayso darbiga maxaa la dhunkano cunid darbigana gidaarkana dhunkanayo سيجيت كيس الليلة كو عيارة صوفا لذلك عجيب سوما هذا مالك قال الله أركي أي سوغر دونكان أيا ور أي كان دونكان يسنى محويا والذي ما أي بيكولا شيء عود أقل كالليلة أي كجرتو كصوب حيبي دقيستا تصوصو عتاك عجبا قبل دي بقر كسي والبمركو دنع والبوكا كان ويلشي أي دلان مدحضو اسكدي دي ayaa boqorkii waxa lagu la taliyay marba haday gabadhani waa ta weynaatay ninkana waalidiisu waa si dheer ba ma ahayn hal dabiibo oo timahana laga xiro aqalka la soo galiyo waan in iska qurux badan hal la dhiso gabadhana hal loo dhiso dhalinyaradii magaalada markaa waxay ogaadeen inuu boqorku rabo inuu Qays hadeeto la gabadho iskaga dhiso boqorkii markaa ciidan buu diro wuxuu yiri haddaba ninkii Qays ahaa soo qaado aqalka soo galiya geedu markaa hoos degana waxa loogu yimiday 20 nin oo Qays u wada eg dharkiisii bay wada xidheen waa dhalinyaradii sida dhalinyaradeennu imika kuwa gaalada isku ekeysiyaan ma darkin kuwa kubadaha ciyaaro iyo kubadu maxay tahay waa lastig hawo lagu shubay Soomaa kuwa waxa dheeldheela ee noloshoodiiba waxa ku dhameystay ay dhalinyaradeenu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiyaan gaal waliba gaalnimadiisu waxa u sii dheer waa shahawaani lastiga yare hawada laga buuxiyay ayuu wax isku mooday isku qiimeynaya markaas dhalinyaradeenu ku dabalumeen waxaad ogaataa dhageyso almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyamah nabigu alayhi salatu wassalaam نبى ويمد النبي قويري نبي الله نبى ضد جعل لكن درجات دودي عمل كوجا ما سمين كرو النبي الله محل ورن لحي برقاب النبي يقول عدة وقف جعل هذو قيامة هلا جوك سنة يا أبو المال هذا تكوها ساعات جعلها قيامها يك الله صباحي هذا تكوها كبد عيارات جعلها قيامها يك الله صباحي هذا سياسة جعلها قيامها سياسة الله صباحي هذا قبيلة جعلها قيامها قبيلة الله صباحي هذا العلماء الربانيين جعلتنا يك قيام الله صباحي هذا أبي بكر يا عمر جعلته أبي بكر يا عمر برضه قيام الله صباحي هذا النبي محمد جعلتنا محمد عليه الصلاة والسلام الله صباحي إن شاء الله هذا مركب اللي يردي ما دام أي مغلين بقر كوحد مع السيئة إنه نكي قيس والله وقبدي سإسكسيو إسقوا كلام مركز إسكسور دجال هل كي اللي فيلا يسقى إن لوجو تجايو لبعتر نوعي سيا لوجو يمدي مركز ميد والبلايا ورد قيس وانيقا مركز هلا دوخي واسكو در واسكو تيمو واسكو حضل واسكو قد سمدات
boqorkii baa loo noqdo la yidhi boqorow meeshii nin keliya ma fadhiye 20 baan helay 20 nin oo wada qays ku yahayna anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabo ninkii 20 buu noqday waxay tirin ana garan qayskii dhabtaha aniga garanaye nin walba soo qaado qol ku xareeya qol baa lagu xareyn qol baa lagu xareynaya qol dagaysta waad maqlaysaan insha Allah markaas nin walba qolka lagu xareeyo waxa loo geynayaa nin xoog leh oo seef wata ayaa loo geynayaa markaas su'aal baa la weydiin oo la leeyahay ma qays baa tahay markaas uu leeyahay qays baan ahay ana qays waxa kale waa beenaalayaal markaas uu leeyahay haddaad qays tahay oo leeyla aad jeceshahay waxay ka tiri jirkaaga badh ii soo goo wala Musa wal qasashana kii horeeya loo yimid ma qays baa tahay qays baan ahay le laba nin xoog la loo keeno sayf wadata moogtahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay lama baxsan karo ma qays baa tahay gabadhi waxay ku tiri haddaad qayskii dhabta aad tahay jirkaaga badh ii soo goo bay ku tiriye halkeenu goynaa noo dhib han goynay markaas uu war qaysna ma yihiin hada ridsidaayo albaabkaagu ka baxay وصلي يا حبيبي مد بمر سيدي لوغو ايمانيو مد والبا ولها war qaysna ma yihiin hada ridsidaayo ilaahay dad taqaanaan walka uga baxayay ayaa isagii dhabta haba la dul yimid oo la soo taagay qays baa tahay markaas uu insha Allah aniga qays kuwa kalena wallahi waxay yihiin garan maayo meeshoon bay igu imaadeen oo gabadha waa jeceshahay waan jecelahay iyadna way jeceshahay da waxay ka tiri jirkaaga badh ii soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu yiri ayada ku noqdo ku dhahada halkee baa jecesho ku soo gooya ka dhahada buu markaa bay tiri qayskii dhabta waa ka ii soo saaray bay tiri maxabada ku hore maxay hayd baan maxabada ninkana nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wasalaam waa nabigeennii waa rasuulkeennii waan jecelahay laakiin dhalinyaradeenu maanta ma John iyo Boom bay u egyihiin mise Muhammad bay u egyihiin bali sheega ya ma John iyo Boom iyo Tyson iyo shaydaan bay u egyihiin mise Muhammad iyo Umar iyo Abu Bakar bay u egyihiin تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جعلك أتشاقني سؤال لا دهي إلهي وأن جعلهي وأن آمن سنهي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن جعلهي وأن آمن سنهي وحي جعله أي سحن قنيسا وأمرك النبي محمد أتقضيت يهود باللقدي ده محبة كلية محبة قولية يهود با إلهي كديدي وحيرادين إلهي أنكم وأن جعل لهي مرقاسا إلهي سودجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا محمد وعد كتر هذا نمكا يهودين حجاتيك وإلهي جعل وعد كتر هذا هرتانيك يسور عكدي إلهي جعل دي سواحد دليل برهان كأ اتباع محيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيا معشر الشباب لن يرادوا بدته المجلس كان فريست إن شاء الله دقاقة جوجية كيسو سعودنا فريسية إنكم رجنا واوين خير باي نقاب مقدر دين جعل بعد مسكيتك أصوع عمرتين لكن جعلك واحد قدرنا عمل فلكي ما قدرنا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيرة دي سام برانينا سورة دي سيبان يلانينا سورة دي سوا معي قابك نبينا أودق ميبان أودق مينا سيرة دو أدقن كيسي قابك أودق مايي قابك أودق مايي جار كيسان جارك أودق مينا قابك ريريس أودق مايي ريريهن أودق مينا قابك دليرد أودق مينا دليردن أودق مينا قابك مساكين أودق مينا مساكين أودق مينا قابك النبي مجتمع أودق مايي أيان مجتمع أودق مينا نبينا عليه الصلاة والسلام
ما عرون جرين ما عيتم جرين ما الحن ما فريسان جرين هذا الحن كما هل جرين هذه وضد ودلي ما دنا صدح جرب النبي سلام جري ضد كاس هذا النبي عيدو تمادو وحق هذا بقى كجت ما دي الله اللان قرت النبي ما قالوا عينين ولكن النبي سجى قفك وده جسنا يقابل أيه هذا النبي قف سلام ينا قعدت مديك بكو سلام جري هذا قف وحسين ينا قعدت مديك بكو سين جري هذا عيد وحكا قادنا ينا مديك توكا قادنا أيه هذا عنت عنا ينا مديك توكو عنا أيه هذا بيا عبا ينا مديك توكو عبا أيه هذا مسكيت كسوق لايو مديك توكو سوق لايي هذا أقل جيس أوقل ينا دعاء آخر السنة بيقولها هذا در حنان ينا حقوك بلا باي مديك در قال شدا در حنا شدا مديك توكو بلا بجري در كمركو سيب ينا بدي حدو النبي كو سيب جري كما مركو حنا مديك تو يقلن جري مركو سيب ينا بدي حدو الرئيس جري رسول هذو تما إسكحيرة يانا حقوك بلا باي بديكت هنا يرى تماها إن لقى حيرة إن اللود دايب النبي قارك صلى الله عليه وسلم بركاب النبي عليه الصلاة والسلام كي يرابو يدي أبيه مي يقول يا رب الله يا ري أما تماها كولا حير أما تماها هو داب النبي كل عليه الصلاة والسلام أما تمها ها كوضا حير أما تمها مالمها نو حركة كوت تموا وين تميه بريجو رافروجي يان لأن يرى ذا كارك كواس الله قاتل أيمك واربع تمها ده دين إنسان إسكت دايا حيرني أما وضع حير أبو النبي يقول يا أما وضع دايا ودقن كيس ودقن كي إسلام إن النبي محمد كده يتا والدين inaad gaala ku dayataana waa diin la'aan bidixda waxba kuma cunayn kumana cabayn bidixda waxaa loogu talagalay zuuliga lagu galaa bidixda waxaa loogu talagalay cawrada marka la meedhaya ayaa lagu meydhaa bidixda waxaa loogu talagalay saxarada la iskaga biiyaa bidixda waxaa loogu talagalay qandhuufta ayaa laga tufaa بدحدا waxa loogu talagalay wixii aan wanaagsanayn wixii wanaag oo dhan midigtu nabigu isticmaalay duu seexanayo xaquu seexanay midigta maxaa midigta loogu seexanaya wadnaha bini aadamku badaxdu ku yaala dhakhtaradii baa imika kule waxa xaqiiqo oon helay bay ku leeyihiin dadka midigta u seexda ka caafimaad badan dadka bidixda u seexanaya sababtu waa maxay bidixda wadnaha bini aadamka ayaa ku yaala haddii bidixda loo seexdo culayskii miisaanka ku dhacaya wadnaha waxa uu qofkaasi halis u yahay inay gacan iyo lugtu ay baqtido hadda iyaku sheegeen cilmiga walaakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 sano ka hor ayuu inoo sheegayaa uu leeyahay haddii midkiin habeenka uu seexanayo xagga midigta ha u jibsada buu rasuulku yidhi gaaladu moogtahay markay zuuliga galaan biyaskagama dhaqaan warqadun bay ismariyaan marka xagga way ka cad yihiin xagga dambana way ka urayaan dhakhtaradii jarmalka ugu qiimaha badna adduunka ayaa waxay dadka kula taliyaan hoteelada iyo meelaha dadku ay ku kulmaan ee zuuliyada laga sameeyey dadka biyo u dhiga bay leeyihiin waayo waxaan ogaanay dadka muslimiintu inay ka caafimaad badan yihiin kuwa gaalada waliba xanuunada inta badan duburka iyo cawrada ku dhaca waxaa la ogaaday gaalada inay ku dhacaan ay ku badan yihiin muslimiinta ku yar yihiin sababtu waa maxay dee qofka muslimka maalintii imsa jeer buu hoostiisa maydhaya diintan islaamku waa diin dadnimadaday dhisaysaa nadaafaday ku dhisaysaa iimaankay ku dhisaysaa akhlaaqday ku dhisaysaa lidaalika dhallinyaradeenna waxaan leenahay
wiilal iyo gabdhaba waxaan ku talinaynaa nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam ham jeclaano oo dhaqankiisa iyo hadigiisa han raacno oo diintu inoola yimiday ham baranno imaam Shaafici rahimahullah ayaa wuxuu lahaa dardaaran cajiiba maqaal cajiiba wuxuu yiri ninka adduunyo doonayo cilmiga baro ninka aakhirad doonayo cilmiga baro ninka guul doonayo cilmiga baro ninka sharaf doonayo cilmiga baro ninka adduunyo aakhirad doonayo cilmiga diinta baro limaada barashada diintaada aad barato waxaad ku noqonaysaa qof wanaagsan bal ku noqon diinta ayada ku dhisaysa لأن دينتنا برنا سعودية أرمني إن شاء الله هذا سكول هذا ده هديجنين أنا نوران معي سكول كإسكاب دكتور وكيم مادة جاية تعليم تأدون كإسكاب برنا يسكاب برو لكن وهذا قد تعليم مادة ده الله برنا يو كوي برتي مقاحيها ما دافنا مقاحيها يفرديان نين قرآن برتي أو شغل أنا بليش شيء ما هيسان من قرآن كبرتي علم القرآن كبرتي حافظ بالنقطة مجود متقن علوم القرآن أو كدر سوى قراءات كيبو برتي بل من كاسو بلا شغاء سو صارع جامعة عمودة شيكتان سنة كيف ساكن بحث عبد الرشيد لما كن وحن لما تنقف فهين بهيئة أو شغاتك تهيئة وحي كالوردن وأقوى مقاحية فردية طريق وذا فردية موبايل انت لكم بلو ديبي مرايدنا وقاتونو ادوك الله سعودات بكل هالكاب وقتي سو دغو دلي وارنتاد موبايل لغو ديبين مرايدات كل بدن عور روغيسو ee gabdhaha dariiqa maraya indhaad ku taagtaagayso orado beerahaaga falo oo dhulkaaga macdanta ku jirta la soo bax gaaladii cadcadayd ba magaalooyinka intay ka guureen ayay miiga dib ugu noqdeen miigi xoolay dhaqdaan ragga adduunka ugu dhaqaalaha badan leh beerana way fashan xoolahana way dhaqdaan magaalana way iska nacaan oo way lugayaan dol dad ka guureen baa inaguna ku sii guureynaa waxbarashada maadiga anu ma inkirayo iska baro laakiin waxaad ogaataa diinta ka qiimo badan inan yar ayaa qaan gaadhay markaasay aabaheed ku tiri aabba kolley waad ii maqan tahay oo berigaa gabadho markay qaan gaadho iyadu waxba soo eegeegan jirine aabbaheedii iyo adeerkeedii iyo walaalkeedba u soo hasaawi jiray oo nin diin loo dabeecad fiican leh u soo eegeegayeen deedna markaabay u keeni jireen markaa inantu waxay tidhi aabbo kolley waan qaan gaadho waad ii maqan taho waad ii soo hasaawaysaaye haddaad nin aad ii keenayso laba miduu ninkaasi ha ahaado ninaan weligii dhimanayn iyo nin weligii faqiira noqonayn baar ma jira bal daboora ma ka soo saara ma jirad weligii ninaan dhimanayn ma haysaan kuwaan weligii faqiir noqonayna gabadhaasi cilmi iyo xikmad badana odaygii baa odayaasha u sheegay wuxuu yidhahdee war annagu garan mayna bal waxa ujeeda iyada weydii markaabuu ku soo noqdo wuxuu ku yidhi aabba macaanay ii kaalayna taydiyey ninaan weligii dhimanayn ma jire iyo nin weligii faqiira noqonayn ma jire maxaad u jeedaa bal ii sheeg waxay tiri ninka weligii aanan dhimanaynin waa wiilka 9 wiil oo walaalaha la dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kalun bay guursan bay tiri reerka ka bixi maayo yani ma dayacmayo weeyaan le gabadha mar haddii la guursado 4 ilmood laga dhalo ninku ka dhinto wax sidaa u eegayaba uu yar yahay ma ogtahay dhalinyarada kuwa freshka unbay egeegtaan waxay tidhi waa ninka 9 wiil oo walaalaha la dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kale ku xigoon baa lagu dumaali bay tidhi oo reerka ka bixi maayo ninka weligii faqiira noqonayna bay tidhi waa xaamilu lqur'aan waa ninka qur-aanka ilaahay xafidsanee xaafidka faqiir ma noqdo bay tidhi bal gabadha caqli badnideeda ka yaaba ka waran caqli badnideeda si saxay u fikiraysa gabadhaas kana teena mid hay-adaha ka shaqeeya hesha taasaa inoogu nolol fiican iminka waddankeena heblaayo he mid hay-adda ka shaqeeya baa guursado bishii $400 qaata oo lacagtan la siin halkee laga keena ma ogtahay adu lacagtan hay-aduhu ay keenayaan ee kugu addoonsanayaan ee dadkeena ilaahay ay kaga gooyeen ee dhulkeennii khayraadka ku jiray
ay kaaga jeediyeen halkee laga keenay lacagta ma taqaanaa kaniisadaha ayaa laga soo qaadaa kaniisadahana lacagta ayaa siiya gabdhaha zinaysta ee buqaada dembiga ay toddobaadkii ay galeen lacagta lagaga maydhan weeyaan ee kaniisadda ay siiyaan ayaa afrika lagu soo caawiyaa ilaahay han aamino oo dalkeenna han aamino insha allah dhahada yaa macshara shabaab dhegaysta kuwii halkaa ka tahriibay ee waddankaa ka yaacay labadaa bay ka ooyeen labadaas wixii ay filanayeenna may helin waxay ku soo noqdaanna ma haystaan diintoodiina halis bay ku jirtaa iyo dadnimadoodii waa dhulkaaga aamin waan aaminay dhada dhulkayga waa dhulkeenna ma aaminteen haa dhahada dhulkeenna hoosaan u eeg nicmadda aan haysanno wallahi ma haystaan iyaku diinteenna macaana han baranno oo diinteenna han ka shaqayno dacwadda han u baxno saa diyaar ma u nahay allah inagu anfaco wixii gafiga dhacayna ilaahay ha iga cafiyo wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana isaga soo dhex mariya allah inaga wada aqbalo dembigeenna allah ha dhaaf dembiga waalidiinteenna allah ha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo awtaadkeenna allah ha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan kurbada saaran allah ka faydo allah ka qaado dad badan oo duco naga dalbanaya jiro qaarkood ubadkii gaala ay ka qaadatay maantadan gabadh baa ila soo hadlayso oo lahayd ciyaalkaygii baa layga qaatay iisoo alla barye ilaahay gaalada ha uga soo rido ilaahay ha uga soo rido innakana dalkeenna khayraadka yaala allah ina tuso diinteenna iyo dadnimadeenna kuwa hoos u eega allah inaga dhigo